sida aad ka warqabtaan muddo 2 usbuuc hadda ku sii dhow waxa fatahaad xoog leh ay ka dhacday magaalada Beledweyne biyihii adogeedeen oo magaalada qaaday oo lagu dhintay oo doomuhu la gadoomeen ayaa ka dhacay biyihii alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxay dhibaato geystaanba kulay Beledweyne waa soo dhaafeen biyihii Beledweyne soo dhaafay badna kuma darsoomin meel kalena kama bixin webiga Shabeelle ayay soo qaadeen waxay dhibaato ka geysteen Jalalaqsi waxay dhibaato ka geysteen Buuleburte waxay dhibaato ka geysteen Mahadaay waxay dhibaato ka geysteen Jowhar waxay dhibaato ka geysteen Balcad waliba waxa u dheer meelahaas hadda aan sheegay waxa u dheer ayagoo beerihii iyo bakaarihii iyo dhulkii lagu noolaa dhibaato gaarsiiyay oo runtii aan cabsi ka qabno xilligan deyrta inaysan wax badano soo go'i doonin ilaahay ma taqaanaa waa farajkiisa waa furi karaa laakiin sida hadda xaaladda u taal deyrta soo socota oo aad ayay u liidataa marka intii dhibaato dadku qabayna way qabeen oo ama hooyga ama xagga cuntada ama xagga caafimaadka ama xagga biyaha laakiin waxa u dheer deegaanadaas aan sheegay beerihii iyo bakaarihii oo biyihii ay qarqiyeen dadkaanuna waa dad beeraleeya waxaan runtii aan u mahadcelinaynaa guddiga fatahaadda qaranka dawladda dhexe oo runtii abaabul weyn arrimahaas ka samaysay haddana maanta imaatinka halkaan aan nimid waxa aan mataqaanaa naloo keenay haddana lagu wareejiyey sida wasiirku u sheegay wax weyn kama taraan dhibka yaalla laakiin waa inaan indhaha dawladda iyo indhaha caalamka iyo indhaha ummadda Soomaaliyeed aan ku soo jeedino xaaladii inay haddana sidaan ay isu bedeshay sida aad ka warqabtaan ama aad u aragteen sidii loo maamulay muxuu ahaay gurmadkii Beledweyne ayaa mudan wasiir asagana loo maamuli doonaa gurmadka deegaanadan guddiguna waa shaqayn doonaa task force-guna waa shaqayn doonaa ilaahay dhibkan ha naga dul qaado waxaan anagu ballan qaadaynaa inaan dadka wixii soo gaara sidii Beledweyneba aan yeelnay inaan si wanaagsan oo loo jeedo oo raali laga wada yahay oo qof walba wuxuu musaacado keeno gacantiisa dadka ku gaarsiiyo muxuu ahaay aan u fududeyno waxa loo baahan doonaa qalabka beeraha waxa loo baahan doonaa abuur waxa loo baahan doonaa muxuu ahaay webigo la xiro waxa loo baahan doonaa waxyaalo fara badan oo dhul beereedka saameyn ku leh oo aan runtii magaalada Beledweyne aan baahi looga qabin taasna kulli guddigan la wadaagi doonaa aad u mahadsantiin maanta imaatinka aad noo timideen ilaahay khayraadi siiyo annaguna waxaan idin ballan qaadaynaa inaan sidaas oo kale aan idin la shaqeyno salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh